guutooyin ka mid ah ciidamada difaaca ee Puntland ayaa ka soo ruqaansaday magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxa ayna soo gaareen jiidaha dagaalka ee gobolka Sool iyagoo ka mid noqonaya howlgalka dawladda Puntland ay ku wajahayaan xoreynta magaalada Laascaanood. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo la hadlay ciidamadan ayaa ku soo dhaweeyay furmaha dagaalka isagoo sheegay in ay gudanayaan waajibaadkoodii ciidanimo ee ay horeba u gudanayeen isagoo sheegay in la difaacayo dalka. وإذا سود ويننا حنا سود ويننا كل يلاب وحنا سود ويننا مقالة مرحبي دلقة وجد أنه الدولة وحبك ما معنا وتجدي قاله برلمان كيو إذا ما دي سراكين سراء فلان لما أنتوا ويدين سفيهين ويدي كم هاد علينا يعني اللي قبل رابو إن شاء الله بإذن الله تعالى سين هرب وقوة هذا اللي لعلم بلدنا باتي حويان يا أحيدنا وحويان أنا عملتي يكلا دبينتي عيدا نمو الحق أكون شوكتين والحق الله يمنسان إن شاء الله بإذن الله تعالى سود هذا إن شاء الله خير وين قنيسا وبالله التوفيق. cutubyadan ciidamada ah ayaa u ruqaansaday isla maanta bajiidaha dagaalka ee Tukaraq waxaana ay si toos ah u tagayaan difaacyada ciidamada difaaca oo ay ka mid noqonayaan amarada ay ka helayaan generaalada hogaaminaya ciidamada difaaca Puntland. Bushra Galaasa TV iyo raadiyaha dawladda Puntland jiida hore ciidanka difaaca dawladda Puntland ee Tukaraq.